السلام عليكم ورحمة الله. وأرين لغما maarmaan ah inay dawladuhu ay yeeshaan caasimad si ay xukuumaddu fariisin ugu noqoto oo ay xafiisyadeeda halkaas ku yeelato. Laakiin mararka qaarkood ayaa waxaa madmadow ka yimaada caasimadda rasmiga ah ee waddan iska leeyahay, iyadoo dalalka qaarkoodna leeyihiin hal caasimad wax ka badan sida dalalka leh 2 caasimadood ama xataa 3 caasimadood. Tusaale ahaan waa maxay caasimadda waddanka Netherlands? haddaad ku jawaabtid Amsterdam maad khaldanid oo dastuurka waddankaas ayaa u aqoonsan inay tahay caasimaddii waddanka. iyadoo ay sidaasi tahay caasimadda Amsterdam, golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha xafiisyadoodu kuma yaalaan halkaas oo waxay ku shiraan magaalada Hague. sidaas oo kale labada aqal ee baarlamaanka ayaa ku shira magaalada Hague, iyadoo xarunta maxkamadda sarena ay halkaasi ku taalo. haddaba Amsterdam waa caasimaddii, laakiin qayb badan oo ka mid ah xafiisyadii dawladda ayaa ku yaala magaalada Hague. waxaa sidaasi la mid ah Bolivia oo caasimadda dastuuriga ay tahay Sucre, laakiin xafiisyadii dawladdu ay ku yaalaan La Paz. Tanzania ayaa iyaduna caasimadeedu tahay Dodoma, laakiin xafiisyadii dawladda badanaa waxay ku yaalaan magaalada Dar es Salaam oo ah magaalada ugu weyn waddanka. sidaasi waxaa la mid ah oo u shaqeeya wadamo ay ka mid yihiin Ivory Coast, Chile, Burundi iyo Sri Lanka. marka laga soo tago dawladahaas ayaa waxaa jira iyaduna waddan leh 3 caasimadood. South Africa ayaa iyadu waxay leedahay 3 caasimadood oo kala ah Pretoria oo ah halka ay xukuumaddu fariisato, Bloemfontein oo ah caasimadda xarumaha garsoorka ku yaalaan, iyo Cape Town oo ah xarunta baarlamaanka. 3daas magaalaba waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin caasimadda South Africa. markaan u gudubno waddanka Switzerland, ayaan dastuurkiisu aysan ku qornayn caasimadda uu waddanku leeyahay, halka wadamada kale ee adduunka uu dastuurkooda iyo qawaaniintoodu tilmaanto magaalada caasimadda loo aqoonsan yahay. waa waxa keenay in la dhaho Switzerland caasimad rasmi ah ma leh. inkastoo magaalada Bern oo ah halka ay xukuumaddu fadhido lagu tilmaami karo inay tahay caasimaddii waddanka. xaaladda Switzerland ayaa ka duwan wadamada kale markii la fiiriyo taariikhdeeda, oo Switzerland waxay ka samaysan tahay maamulo loo yaqaan cantons oo isu tagay kuna heshiiyey inay confederation samaystaan, qolo walbana si gaar ah isu maamusho, oo xataa magaca rasmiga ee waddanka waxa loo yaqaanaa Swiss Confederation. xukuumadda waddanka maamusha ayaa ka kooban 7 qof oo ka yimi maamulada ay ka samaysan tahay Switzerland, oo mid ka mid ah loo doorto madaxweynaha dalka, ilkaas oo uu hayo muddo 1 sano ah oo keliya, oo uu markaasi bedelo madaxweyne ku-xigeenkiisii, iyadoo 7 qofba uu midba madaxweyne markiisa noqdo. laakiin go'aanada dawladda madaxweynaha kaliya kama go'aan, oo 7doodaba go'aanada waa isla qaataan. markii uu madaxweyne waddan kale soo boqdo Switzerland, waxa uu la kulmaa 7doodaba oo dhan ee madaxweynaha kaliya lama kulmo. arrintan ayaa waxaa dhaliyay in waddanku qowmiyado kala duwan leeyahay, oo waxaa looga hadlaa luqadaha Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka. waana qaab ay maamuladaas qowmiyadaha kala duwan matalaya ay awood qaybsi u sameeyaan. intaas ayaan noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Assalaamu calaykum.